ليش القيان واقينا ليش القيان واقينا sida arki kartaan waxa garabkayga midig taagan Ibrahim Maxamed Jimcaale oo ku magac dheer Ibrahim Xigmad waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir waxa uu leeyahay hibooyin gaar ah taasoo dadka badi aysan lahayn hibooyinkaas waxa ka mid ah in Ibrahim uu awoodo in ilkihiisa uu ku jiido bajaaj isagoo bajaajka ku xiranaya xarig binji ah ama aad u adag kadibna ilkihiisa ku jiidaya taasi dad badan waxay u arkaan arrin aan la sameey karin ama qayr caadi ah halka Ibrahim sidoo kale uu awoodo in caag buuxo oo biyo ka buuxaan oo 20 la ah dadka qaarna dib ay ku tahay inuu gacmaha inta hoos u dhigaan ay ku qaadaan 20 laha Ibrahim awood wuxuu leeyahay ilkihiisa inta ku qaado ama suro inuu kor u qaado waliba kor u qaado kaliya maahane uu la socdo waxa wax ka weydii doonaa bal mucjisooyinkaasi wiilkan yar ama dhalinyarada ah uu leeyahay inuu nooga sheekeeyo bal xilliga uu arkay inuu awoodaasi gurihiisa ay ku jirto awoodaas oo ah in bajaajyada ama waxyaabaha culus oo dadka gacmahooda aysan ku sameey karin asaga afkiisa ku sameey horta waxaan arkay sanadkii markii oo 2018 ciyaal iska baashaalayo oo ku baashaalayo jiirkaanka dhahayana waan qaadi karaa ilaa halka waan geey karaa aniga waa imaaday waa iska baashaalay dhalinyar baa iska hay waxaan idin markaa aniga ilkii ku qaadi karo waxaan ilkaha ku qaadi karaa waa yeesay macnaha waa imaaday ilkii ayaan ku qaaday markaas ilkaha ku qaado waa ila fududaad marka koro ila kaxay koro caag waa la istaagay waan jiljilay wax xanuuna kama dareemayo wax culays kama dareemayo ani naftirkayga ayaa isku yaabay inta sadadka ila yaabin koro guriga ayaan tagay xoogaa ayaa isla cajaabo su'aalooyin ay isku weydiiyay waxaan is dhahay dadka oo idil ayaa sameey karo dadkii ayaan bada asxaabaan challenge ku xujeystay waa u keenay waxaan bal isku day sameey way sameey waayeen markii dadka oo idil sameey waayeen markaas waxaan ogaaday in aan aniga oo kaliya ay gaartay hibadan sidaas ayaan ku ogaaday inaan hibo leeyahay okay marka dadku maxay dhaha markay arka adigoo maaragtay ilkaaga ku qaadayo 20 leh maxay yiraahdeen horta dadka way kala aragti duwan yihiin dad baa waxay ku leeyihiin sixroolo baa tahay dad baa waxay ku leeyihiin maasha Allah hibo baa leedahay ilaa awood ku munaastay waxa waaye ku dhiirigelinayna hore u soco dad baa ku dhahayo inta badan qaar waxa waaye Soomaalidu waxay badan isha dad ku haleesho waxay tahay isma dhahan maasha Allah erayga maasha Allah waxa waaye qiimo ayuu leeyahay qofka awoodiisa wuxuu ka xijaabaa isha ayuu ka xijaabaa maasha Allah kuma dhahayaan qofkan wuxuu ku leeyahay waaw awood ayuu leeyahay lagu hore laga socana qaar marka qaaraba ku caynaya oo ka xun waayo dadka Soomaalida waxba isku ma ogolo qaar baa ka xun oo ku dhahayaan sixroolo baa tahay waxa nagala kortay marka dadku sidaas ay u aragti duwan yihiin waana ku qanacsanahay waa in dadka kala aragti duwanadaan aniga wax faa'iido ay uma jirto dadka aragtidooda wax faa'iido ay uma jirto waayo qofka waxaan aniga ka qiimeeyaa qaabka uu fahmo waayo fahamka waxa lagu qiimeeyaa waa aqliga qofka sidoo ku fahmo ayaan lagu qiimeeyaa oo lagu qaataa arinta bajaajka ka wada tirkeeda goorma aydan aad tijaabis markaan su'aalooyin badan is weydiiyay tan aan soo bandhigay waxaan yiri marka maxaa kala taqaana su'aalooyin ay is weydiiyay ilaan qofku marka uu wax isku arko oo kiis ku nafsadiisa ku arko su'aalooyin ay is weydiinaya su'aalooyinkan is weydiiyay marka waxaan is dhahay maxaa kala sameyn kartaa marka waxaan tijaabiyay bajaajkan aan tijaabiyay bajaajkan iyada naftigeeda waa jiiday waliba xataa si fudud ayaa u jiiday ila fududaatay waxaa sii qof walba jiidi karo oo waxa way talaalaxaya sida hadda qof walba oo arka barnaamijkan oo arko wuxuu ku leeyahay waa talaalaxiisa meel waxay saarnay talaalaxa lagu saaray foolo waay ay ku leeyahay foolada naftirkeeda meeqa lagu riixa marka ay meel ku istaagto meeqa lagu riixa 3 ilaa 4 lagu riixa dada waxay ku leeyahay iga riixaan saacad kale caawi ila riix ay ku leeyihiin marka hadii aan aniga kaliya ilkeyga aan ku jiiday ilka waa dareemi kartaa ilka waa daciif hadda aan ilkeyga ku jiiday waa dareemi kartaa marka xaaladda ay gaarsiisan tahay ilkeyga ayaan ku jiiday sida asxaabta oo korjoogtada ka baroobeen qaar baa sameey waayay marka waxaan yiri marka awoodis inay gaartaa ogaadaan waxaan jeclaystay inaan soo bandhigo sidaas ayaan ku soo bandhigay okay dadku dhiirigeliye ma jiraan aad u weyn dad badan ay dhiirigeliyo waan dadka jecel asxaabteyda anina waa jecelahay waan u mahad celinayaa waxaan jecelahay awooddan barnaamijyaadkan caalamku ka jirta hadda American Got Talent waxa ka soo qayb galo dad badan oo wadamo kala duwan ka socda ayaa ka soo qayb galo dadkaasina waa dad la soo dhiirigeliyay dadkoodii ama wadankoodina uu soo dhiirigeliyay juhdina uu ku soo bixiyay anina sidaas oo kale waxaan jecelahay wadankayga inuu garabkayga istaago dadkii garabkayga istaagaan si aan awood ugu yeesho inaan ka qayb galo tartamadaas abaalmarin ku qaato okay
waxyaabo kale oo aad rajeynaysa inaad ku soo darto ama aad tijaabo ku wada hadda ma jirtaa si aad maaragtay mustaqbalka dhow soo bandhigto ها waa jirtaa maxaa kamid hadda waxaa jirto barnaamij aan tijaabiyey welina aan soo bandhigin oo hadda ay tahay baabuurka loo yaqaano karoolaha baabuurka karoolaha waa baroobay horena waa u dhacay hadda kahor markaan sameynayay waxaan iri waxaan rabaa awoodeeda inay gaarsiisanaato ilaa ay heer baabuur aan ilkay ku jiidi karo baabuurka naftirkiisa waan baroobayay waana jiiday waana soo bandhigi doonaa insha allah marka process waxay ku jirtaa ha processka aan soo bandhigitaanka ku jirtaa marka muddo dhow rajeynay insha allah muddo dhow rajeynay inaan dadka u soo bandhigo waana iga sugaysan insha allah marka baaqad u diraysa bulshada maxay tahay horta bulshada waxaan leeyahay qof walbo oo hami leh amba hiigsi leh inay garab istaagaan waa inaysan dhaliilin amba ay hoos u dhigin qofka walaalkaaga waxaa la rabaa hamiga uu leeyahay xataa yuusan ku qancin adiga yuusan ku qancin waxaa la rabaa kaliya inaad qofka aad dareensiiso inaad lagu wada qanacsan yahay laguna faraxsan yahay si uu asina ugu dhiirado inuu hore usii socdo haddana waxaa rabaa aniga inaan sameeyo barnaamij hadda waxaa kusoo kordhiyey waxaan samaystay youtube ayaa samaystay youtube-kaas waxaa ku qoran Ibrahim Xigmad waxaan rajeynayaa inaad soo booqan doontaan oo aad igu dhiirigelin doontaan in barnaamijkan aan si hore usii wado youtube-kaas aan samaystay Ibrahim Xigmad ku qoran Soomaalida waxaan ka rajeynayaa hadda barnaamijyada artist aan ku soo bandhigay hadda artist oo nashqada ani aan sameeyay maskaxdayda ka sameeyay oo ka aliftay ayaa ku soo bandhigay waxaan rabaa barnaamijka hadda aan sameeyo rabana inaan ku soo kordhiyo ayaan rabaa oo soo dhigo halkaas igala socdaan dhiilaa shacabka Soomaaliyeed Ibrahim Maxamed Jimcaale Xigmad ayaa hamigiisa ugu weyn ka dhigtay gaaridda yoolkiisa ku aadan ka qaybgalka tartamada hibooyinka ee caalamiga ah Maxamed Ciise Koona M24 TV Muqdisho